daawadayaal halkan waa masaajidka Al-Naciim oo loo yaqaan Xasan Jiis waxa bilaaban doona goordhow hadduu alla idmo dhismaha masaajidka oo lagu wado maalinta berita ah in gabi ahaan masaajidka la dumiyo ama dhulka la dhigo si loo bilaabo dhismaha masaajidka maanta waxa socda waxa weeyaan in roogii la laabo oo howlihii kala duwanaa ee halkan ay dhalinyarada masaajidka iyo guud ahaan odayaasha iyo jamaacada guud ahaan ay qabtaan howlo kala duwan oo masaajidka ku tacalluqa ama ku saabsan sida idin muuqataba masaajidka waxa la doonayaa in dhulka la dhigo lagana dhigo dabaq kaas oo jamaacada in muddo ah ay ku taamayeen maantay rooga ayaa la laabayaa hadduu alla idmana isla maanta ayaa la rabaa in la fiiqo qaybta kore si masaajidka qabanqaabadiisa ay u bilaabato iyadoona maalinta berita ah la doonayo hadduu alla idmo in cagaf la geliyo oo masaajidka dhulka la dhigo masjidku waxa la yiraahdaa Al-Naciim Xasan Jiis ay dadku u yaqaaniin maalmihii ugu dambeeyay ama jamcooyinka ugu dambeeyay waxa socday tabarucaadyo masjidka wax loogu ururinayo taas oo bulsho fara badan ay ka qayb qaadanayso dhismaha masaajidka ayaa hadduu alla idmo dad badan intii alla uu u suurta geliyo ay wax ku darsan doonaan waa una dhismi doonaa masjidka hadduu alla idmo sida idin muuqataba waxa weeyaan xaaladda ayaa noqotay sidan maadaama saakay salaadii subax lagu dukada masaajidka waqti xaadirkanna ay dareemi kartaan in roogii gabi ahaantiisa la laabay oo uu laaban yahay rooga waxa weeyaan halkaas waa meeshii mimbarka ahayd oo imaamka salaada uu ku dujinayay waxaad moodaa in maanta ay ka duwan tahay maalmihii hore bilicda ayaa ah sida hadda idin muuqanaysa masaajidka Xasan Jiis Al-Naciim waxa weeyaan waxa uu ka mid noqon doona hadduu alla idmo masaajidada kuwa Muqdisho ku yaala isla markaana marka loo eego dhismihiisa waxa uu noqon doona mid ay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo muslimiin ah ay ku wada kulmi doonaan oo sida hadda xaaladdu ay tahay ayaa la rajeynayaa ama la doonayaa in ay ka sii sare marto waxaan rajeynaynaa waxa weeyaan masaajidka oo noqdo mid dadku ay indhihiisa soo jiitaan bilicdiisuna ay noqoto mid aad u heer sareysa waxaan tagi doonaa oo aan isla aadi doonaa dhanka iyo weysaqaadka oo aan rajeynayna hadduu alla idmo in wax badan ay ka bedelmi doonto maadaama sida hadda weysadu ay tahay ay wax iska bedeli doonaan waxaan rabnaa inaan u dhaqaaqno dhanka iyo weysada oo bilicdeeda iyo sida hadda ay tahay aan rabno inaan ogaano si xaaladda ku soo kororto ama sida ay noqotona aad gadaal ka arki doontaan daawadayaal waxaan ka soo tagnay qaybtii dadku ay ku dukanayeen hadda waxaan joognaa qaybtii weysada ahayd oo dadku ay ka weysa qaadan jireen waxa idin muuqdo waa barkadii biyaha ay ku jireen iyo suuligii oo aad meeshan uga dhow isla markaana muuqaalkeeda waxaad arkaysaan weeyaan waxaan goordhow ka soo tagnay qaybtii salaada dadku ay ku dukanayeen hadda waxaynu joognaa qaybtii koombooyinka ay ku jireen oo dadku ay biyaha ka darsan jireen halkan waa barkadii biyaha dadku marka ay weysa qaataan kadib ayay halkan koombada dhigi jireen muuqaalka weysada ayaa ah mid sida hadda idin muuqda ah inkastoo aan rajeynayno hadduu alla idmo in ay wax badan isbedelaan bilooyinka soo socda masjidka marka dhismihiisa uu dhammaado goordhow waxaan la kulmi doonaa mid ka mid ah howlwadeennada masaajidka oo ka warbixin doona sida xaaladdu hadda ay tahay iyo sida ay wax isku bedeli doonaan hadduu alla idmo iyadoona aan rajeynayno in masjidku uu noqdo mid aad u qurux badan isla markaana ay ku hoolan yihiin injineerada kala duwan ee dhismaha masaajidka qayb ka ah waxaan rajeynaynaa in wax badan ay isbedelaan waxaan jeclahay markan inaan soo dhaweeyo macallin Xuseen oo ka mid ah jamaacada masaajidka in muddo ahna ku hoolanaa sidii guddiga qaybihiisa kala duwan iyo iclaamka guud ee masjidka iyo tabarucaadda dadku ay soo dirayeen shakhsigii naadinay lambarka oo dadka u sheegay ayaa ila jooga asaga ayaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo si uu dareenkiisa u cabiro maadaama maanta ay tahay qabanqaabo ku aadan masjidka in qaybtiisa kore maanta la fiiqo birito ama bacd sida walaalkay oo noo sheegay waxaan joognaa masaajidkii oo la yaqiinay oo caanka ahaa masjidul Xasan Jiis oo loo yaqaano masjidul Naciim oo hadda ma aragtay aan rabno in aan ka dhigno dabaq oo haddana aad u jeediin marxaladiisa meesha uu maraayo oo la rabo hadda ma aragtay nidaamkan in lagu guuro sidoo u dayacan yahay iyo sidoo ma aragtay roobka biyaha u soo geliyo iyo ma aragtay masaajidka sidoo akis oo mid gaaban oo u ahaan jiray marka hadda waxaan rabnaa inaan masaajidka aan ka dhigno waxaan rabnaa masaajidka inaan ka dhigno haddii ilaahay yiraahdo dabaq aan ka dhigno barnaamijkan dhan inaan ka guurno maadaama masaajidka oo dhisnaa 30 sano oo qadiimin oo ahaa dhulkan oo galay jamaacada kuleel iyo ariiri ay dareentay
marka go'aanka jameecada waxaa la isla raacay in maaragtay masaajidka aan kor u qaadno oo masaajidka aan daba ka dhigno dadka muxsiniinta ahlul khayrka oo qaryadan deganna way ka soo jawaabeen si wanaagsan aynu soo jawaabeen iyo dadka maaragtay muslimiinta oo dhammaan dunida meel alla meeshay ka joogaan si fiican ay maaragtay codsigeyni iyo maaragtay iyo ay ugu soo jawaabeen haddana waxaan rabnaa wax alla wixii dhiman inaynu la soo garab istaagaan soo masaajidka oo nooga naqan lahaa masaajid oo maaragtay dabaq ah oo masaajid oo maaragtay oo jameeco badan ay ku soo tukato masaajidka maaragtay ilaa laba duur laba dabaq inaan soconaan jecelna haddii ilaahay yiraahdo sidii maaragtay aan rabno ilaaha laga helaa insha Allah injineer fiicanna waa helnay oo maaragtay ilaahay uu haleel siiyay dad mutatawiciin ah oo maaragtay ahlul khayr ah waa helnay teeda kale intaana waxaad ogaanaysiin masaajidka mushaaqiintii weynaa way joogaan waxayna diyaar u yihiin dadka muxsiniinta ah ahlu sadaqada inay u duceeyaan dal idibid meel alla meeshay joogaan dadka wax soo baxsadina waa loo duceeyay dadka hadda soo baxsan doonana insha Allah in loo duceeyo sidii masaajidka oo maaragtay ay ugu qayb qaataan waxa kale oo rabnaa masaajidka in maaragtay masaajidada kaleenta oo maaragtay degmada Madiina ka dhisan ay uu la mid noqdo ama uu ka qurux bato aan jecelnahay hadii la yiraahdo waayo wax la qurxiyo waxa ugu wanaagsan masaajidka Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah maadaama in badan uu aha masaajidka masaajid oo aad u dayacnaa laakiin hadda insha Allah waxaan jeclaysanay gudigii xaafada iyo mushaaqiintii waaweynaa iyo culamaa u diintii iyo maartii nabadoonada xaafada iyo dhalinyartii iyo habeenkii waxay go'aansadeen in masaajidka ay dhisaan oo maartii qayb saro ma sha Allah ay ka dhiyaan ilaahayna haloo garab galo waxaan kaloon ka codsanaynaa dadka walaalahayna oo dibadda jiro in ay si oo buuxda ay soo garab istaagaan masaajidka lambarkiisana oo maaragtay akoonkiisana waa idin soo gudbinaynaa akoon uu leeyahay dadka dibadda joogaan codsanaynaa in akoon salaam bangi uu leeyahay lambarkaas salaam bangi akoonkaas uu leeyahay inay lacagta ku soo shubaan hadday lacag ku soo shubaan waxa uu soo bixiyso masaajidka Xasan Jiis tabarucaadka masaajidka Xasan Jiis aniga waxaan ahay gudiga eelaanka maaragtay masaajidka Xasan Jiis إن شاء الله قدومي قدوي إعلان مساجد سنجيس مشايخين كلنا وايد جوجان مركو هنقعد سنينا إن أي نصاق قرب استعجان مسلمين تميل على ميش جوجان دل يدبت إن شاء الله تقبل الله داوديال waxaan jeclahay in aan markan u yeero si aan ula wadaagno ama guud ahaan bulshada ay ula wadaagaan masaajidka iyo wax laga soo xiriiri karo dad badan ayaa jecel sadaqaadka masaajidka in wax ku darsadaan qaarkood ma yaqaanin meeshii ay kula soo hagaagi lahaayeen waxaan jeclahay mar kale inaan ka codsado Sheekh Xuseen oo ah gudoomiyaha iclaamka masjidka si uu noola wadaago akoonka masjidka u gaarka ah iyo taleefanka intaba asaga ayaan jeclahay mar kale soo dhaweeyo Sheekh Xuseen soo dhawow akoonka iyo numberka dadku sidii ay kula soo xiriir lahaayeen masjidka oo ay wax ugu soo darsan lahaayeen ما شاء الله جزاكم الله خير الجزاء إلهك والمريو إن شاء الله مساجد كتبرعات كاسمها مساجد كحسن جيس أو مسجد الله يقانو مسجد النعيم وحولي هاي اللمبر أو معركة AFC بلاس لمبر كاسي دتك محسنين تا أو معركة بقول أي لعقتك صوت طور كران أنا أي سوي كران وهي أو معركة أي أبا هنيهين مساجد كسي وح أجورستان سيدان أجنها مساجد وحلاص سمايي جودي لأن يرى أو في فرعون أو آدي آدنا الله عربية أون لحنا معركة احترام يصور دوين أو آدي آد ونكسن جودي جالس وحن أصميني دتك محسنين تا hadday taleefanka soo wacaan mar walba si loogu qabto iyo mar ala markay wax soo tuuraan oo maartay lambarka ay ku soo tuuri lahaayeen teeda kale gudigaas markii aad soo wacdid hadii alaab aad soo wadid aqab aad noo keentid shameenda rabnaa bira rabnaa wali koom joogto faanolo far uma qodna masaajidka mutneelo u baahan yahay sidaan hamigeyna aan jecelnahay masaajidka waxaan rabnaa in loo kala harin bulshaweynta Soomaaliyeed muxsiniinta ahlul khayrka waxaan ka codsanaynaa in mar walba ay gudigaas kala soo hagaagaan lambarkan furaha waa 795 99 furaha waa 795 99 waa furaha waa 795 99 waa lambarka AFC balaaska oo lagu soo xiriiri karo gudiga tabarucaadka dhismaha masaajidka Xasan Jiis oo Masjidul Naciim wuxuu leeyahay masaajidka akoon number uu leeyahay akoon numberkaasna uu yahay salaam bangi
oona akoon nambarkaasi uu ku bilowdo xidig 799 xidig 32 79 21 ewer 7 waa lambarkaas waa akoon nambarka oo salaam bangi hadaad lacagta ka soo dirto waxa ku soo bixi doonto tabarucaadka dhismaha masaajidka an-naciim xasan jiisa ku soo bixi doono marka walaal insha Allah dadka ahlul khayrka ah mar labaad mar saddexaad akoonka idinku celin doona furaha xidig 799 xidig 32 79 21 ewer 7 xidig 799 xidig 32 79 21 ewer 7 waa akoonkii oo maaragtay masaajidka oo maaragtay aad kula soo xiriir leedeen oo maaragtay masaajidka xasan jiis oo tabarucaadku waay marka waa kaas insha Allah asigo oo maaragtay oo kaliir aana waa kaas insha Allah si fiican u fiirsada marka dadka muxsiniinta wali maysan joogsanin qayladii waan wadnaa od dheer aan ka qaylinoynaa insha Allah hadii la yiraahdo waxa waaye guushayna inaan helno masaajidka oo noo dhismo oo asigoo dabaq ah jameecadii oo ku jirtay kuleelkii iyo cariirigii masaajidkii dhulku ku jiray in aan ka baxno masaajidada Ilaahay inaan qurxino waa goobaha Allah subhanahu wa ta'ala ugu talagalay oo maaragtay in la wanaajiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunka meel badan uu abuuray laakiin meelaha uu ku doortay waxa kamid ah masaajidka iyo Kaabada dhulka Ilaahay asiga abuurtay asigoo Allah subhanahu wa ta'ala masaajidka abuuray dhulkan adduunkan abuurayna Ilaahay meel gaar ah uu ku tilmaansaday meelaha gaar ah Allah subhanahu wa ta'ala doorsadeen waxay kamid yihiin masaajidada Allah subhanahu wa ta'ala iyo sida Kaabada sida Baytul Maqdis marka waxaad ogaatiin Allah subhanahu wa ta'ala waxaad u baxsataan bari maalimaha qiyaamo ayaad u baxsan doontiin marka waxaan leeyahay ummadda ahlul khayrka ah anagoo ka hadlaayo gudiga masaajidka dhammaan anoo afkooda ka hadlaayo waxaan idin leeyahay dadka muxsiniinta ah ahlul khayrka ah waxaan ka codsanaynaa in ay soo maaragtay u soo tartimaan waxa la yiri falyatanafasil mutanafisun dadka ahlul khayrka ah in ay u soo tartimaan waxaad ogaataa hadaad beed dhisto oo beedkaasna masaajidka Allah subhanahu wa ta'ala uu kamid yahay in Ilaahay uu kaaga dhisi doono beed kamid ah beedyada oo jannada Ilaahay uu kaaga dhisi doono taada kale waxaad ogaanaysiin hadda kooranin yahuud ah oo maaragtay nacaab oo islaamku u qabo dartiisa oo masaajid ay dhisaayeen u tuuriyay dhagixii oo tuuray ayaa waxa dhaxgalay baa la yiri shameendada dhagixii baa wuxuu kamid noqday qayb kamid ah masaajidka Ilaahay ninkaas yahuudka dartiisa dhagaxaas oo u tuuray ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala janna ka mutaysiyay dimbigiisana lagu dhaafay hadda waa nin yahuud oo nacaab islaam oo qabo u tuuray jecel uma tuurin laakiin ajirkii abatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala taa dartiisa dimbigiisa u dhaafay jannana uu ku mutaystay marka adigoo muslim ah oo islaam ah maxaa ku diiday in masaajidka Allah subhanahu wa ta'ala aad gashatid oo ma aragtay shamiindada Ilaahay afka been garab birihi la rabaa mutneela la rabaa masaajidka ma hayno runtii haddaan idin sheegno birihii oo ma aragtay oo masaajidka gali lahaa oo shubka ah gacan lagama hayo wali shamiindadiina waxay maraysaa 600 700 iyo wax la jiraan haynaa injineerkana wuxuu sheegay 2600 marka waad ogtihiin 700 oo kii shamiinda iyo meel laga rabo 2600 waad ogtihiin waxa u dhaxeeyo marka dadka ganacsatada ah Ilaahay hoolaha siiyay hantida siiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ugu soo dhawaadaan hantidaasayna maanta waxa loo siiyay Allah subhanahu wa ta'ala waa imtixaan marka imtixaanka adduunyada Ilaahay inuu ka qaado maartii sadaqana waxba ma naaqsiso rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ku daabeeyay kiina idinku jiran sadaqada marka sadaqada caafimaad baa laga helaa waxa laga helaa horumar laga helaa maartii sadaqada meel ala meeshaad ka soo qaadin Ilaahay bedelkiisana wuu idin soo elin doonaa marka insha Allah dadka muxsiniinta ahlul khayrka waxaan ka codsanaynaa oo dheer aan ugu sheegaynaa insha Allah hadii la yiraahdo masaajidka waa in ay soo guntadaan oo maaragtay ayna maaragtay wax aysan u soo harin sida masaajidka oo u noqdo masaajidka maaragtay maadaama uu yahay masaajid qadiimi ah oo magac leh oo kamid ah masaajidada Xasan Jiis oo caan ah wuxuuna ka yaalaa jidka Kaawagoday oo ku yaalaa wadadan oo maaragtay jaaya Kaawagoday wuxuu ku yaalaa xaafadaas oo masaajidka Xasan Jiis la yaqaan oo caan ah
marka waxaan leeyahay id ala idii dal iyo dibid joogto waxaan ka codsanaynaa siiba dadka dibid jiro akoonkaas inay wax nooga soo shubaan birihii baa naga maqan ilaa afka been gabareeb shameendadii yaa naga maqan waxa kale oo naga maqan mutneelkii yaa naga maqan marka masaajidka waxaan jecelnahay sida hab casri ah oo aad iyo aad u qurux badan inaan u dhisno marka ilaahayna hanolo gorob galo marka mar labaad mar saddexaad waxaan ku elinayaa lambarka furaha waa 7 kan AFC-ga furaha waa 7 lambarkan waad soo wici kartiin waxna waa ku soo tuuri kartiin AFC balaskan waxa iskale masaajidka waa lambarka tabarucaadka dhismaha masaajidka sajis oo la yaqaan masjidu an-naciim akoon numberka oo leeyahay waxa kamid ah xidig 799 xidig 32 79 21 waa akoonka oo ma arti salaam bangi ah oo ma arti lacagta aad ku soo shubi kartiin walaalayaal waa idin mahadcelina ya khayr Allah idin siiyo dadka sadaqada baxsaday ilaahay waxaan leeyahay ajr iyo xasanaad Allah ka siiyo meeshay ka soo qaadan badalkooda Allah ugu soo celiyo waalidiinta iyo walaalaha jiranna ilaahay inuu caafimaad ka siiyo ilmaha oo ma arti xirxiran oo ma arti dibida ka xirxiran oo iyo ilaahay inuu ku soo furaadsado inuu ma arti ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr iyo xasanaad uu siiyo meeshay ka soo bixiyeen ilaahay ma arti beelka khayr qabta Allah inuu ugu bedelo ganacsatadeena sharafta badan oo Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in masaajidkan ay ka soo jawaabaan codsigeena aan bixinayno in ilaahay dartiisna ay ugu soo jawaabaan marka waxaan leeyahay salaam alxamdulillah walaalayaal ahlul khayrka oo khayrka jecel oo muslimiinta dal iyo dibid joogaan waxaan u sheegaynaa in masaajidka uu leeyahay gudi iyo culamaa u diin oo ma aragti wax ala idinka wax ala waxaad masaajidka u soo baxsataan oo ilaahay dartiisna aad u soo niyoodaan gudigaasna oo masaajidka idin gelinaayo masaajidka ma aragti wixii aad u soo dhiyubitaan masaajidka ilaahay subhanahu wa ta'ala idin gelinaayo oo aamin ah oo culamaa u diin ah musheeqooyin waaweyn ah oo ma aragti magaalada muqdisho ah oo aanka ah insha Allah waxaan jecelnahay gudigaas ilaahay inuusan asigana ku ceebeynin wax ala wixii muslimiinta ay u soo dhiibtaan masaajidka Allah subhanahu wa ta'ala idin gelinaayo oo ma aragti masaajidkana ma aragti oo idinka dhisaayo ku qurxinaayo wax ala wixii aad ilaahay dartiis u soo baxsataan oo aamin ah oo ma aragti lagu kalsoon yahay marka walaalayaal taasaan idin sheegaynaa marka wax ala waxaad soo baxsataan ogow in masaajidkii Allah subhanahu wa ta'ala dartiis lagu gelinaayo oo masjidun naciim oo loo yaqaano عافته حسن جيس مركز مساجد كاس أو حتى أتوجدين أو ما عند جوشي يوحي لقى قاضي أو لا روا أقولك إن لا تيجي دونه أو بريت هدي إلهي سبحانه وتعالى يراده أو تاريخ ده بش هجرينا أي مريسو سجال هدي لا يراده بشان أو مارتي بشان ميلاد دينا أي مريسو لبي طبعا inuu masaajidka oo maaragtay bilaabo doono hooshiisa marka ay dhamaatana masaajidka oo la dhameeyana oo aan idin soo sheegi doono inta oo maalmood uu socday inta bil uu socday inta lagu soo gabagabeeyay marka insha Allah ogaada taariikhdaas ay berita hadii ilaahay yiraahdo masaajidka Xasan Jiis masjidun naciim ka tarbiila la gali doona dhulka la dhiga insha Allah belindigiisa iyo aasaaskiisa waxa laga soo bilaabaa hoos إن شاء الله هدي لا يرادو مركز سدا حلال الصعود الله سبحانه وتعالى خير الله سيو وحان آدياد ومهدلينينا أرورك الدن وذاك ما شاء الله أو معرتي نصور تقليي برنامج كان أو ودلنيرو أو تربية أو معرتي لو تربية سيدا معرتي ورباهنت يو معرتي يو عدك أو أهل الخير كأس سيدا ميلدر وجارسيان marka waxaan leeyahay ururka dan wadaag ilaahay ha idin barakeeyo sidaad maartii u shaqeysaan ilaahay fi fircoonidiina iyo maartii wax tarkiina ilaahay horumar Allah idin gaarsiyo ilaahay waxa idinku baryeena wanaagan aad sameeynaysan ilaahay maartii ajri xasanaad ilaahay idinka siiyo ilaahay inuu maartii hooshiina howlkarnimadiina iyo shaqadiina aad maartii aad u haysaan ummadda Soomaaliyana ilaahay ajri xasanaad Allah idinka siiyo marka aan maartii aad iyo aad ugu mahadcelinaayo ururka dan wadaag marka waxaan leeyahay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh